بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم أيها الأحبة المحترمين. وبرنامج كله وين كجهل دون إن شاء الله تعالى سرت دبو أو هبين النفط هذا ساد أسمين لهيد life adjustment نفط هذا أدو أسمين لهيد دبو هبين أديكو أو اللهم صل على محمد كاشنا يسلق النبي عليه الصلاة والسلام. ugu horeyn waxaan jeclahay inaan halkan uga mahad celiyo walaalaha sharafta badan rag iyo dumarba ee ila soo wadaagay in saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam markii akhriyeen ay ku bogsoodeen sidoo kale qaarkood ay la wadaageen qisooyin kale oo iyaguna wanaagsan aad iyo aad u mahadsan dhamaantood. barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sirta dib u habaynta naftaada adigoo kaashanaya saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. walaalkayga muslimka ahow walaashayda muslimada ahay ma jirtaa hiigsi iyo hadaf aad leedahay oo aad gaari leedahay wali dariiqa kugu sii dheeraaday ma jirtaa camalo wanaagsan oo aad qalbiga ka jeceshahay inaad samayso si aad Allah subhanahu wa ta'ala ugu dhawaato u noqoto qof mujtamaciisa uga dhex muuqda sida tusaale ahaan acmaasha khayrka ay ka mid yihiin inaad soomto soomka sunnaha ah sida maxaan ku dhahdaa ayaamul biidka oo kale iyo soom kasta oo sunna ah. ma jeceshahay inaad soomto? ma jeceshahay inaad salaatuleelka u kacdo? ma jeceshahay inaad quraan akhris ka badiso? ma jeceshahay inaad wanaaga aad dadka farto xumaantana aad ka reebto adigoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaanaya? ma jeceshahay inaad baari u noqoto waalidka iyo sidoo kale haddii aad xaas tahay sawjkaaga? ma jeceshahay inaad waxbarashada kordhiso ama akhriso cilmi baadhiseed oo dheeraada aad samayso? sidoo kale ma jirtaa balwad ama caado aanad jeclayn oo aad rabto inaad iska jarto balse naftaada ay u suurto gali leedahay in aad ka jarto? intaasoo dhanba haddii ay jiraan oo aad rabto arrintaas inaad gaadho barnaamijkeena maanta waxa uu kugu dhiirigelinayaa oo ku leeyahay hawlwelin hana murugoonin ogsoonow sirta keliya ee dib u habaynta naftaada waa adigoo qabsada ama ku dhega saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam oo ka mid noqda dadka Allah subhanahu wa ta'ala ugu dhawaanaya saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dhadhaminaya macaanka naxariista iyo xasiloonida laga helo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waayo waa albaab aan marnaba ka xirmaynin waa naxariis iyo qiimeyn Allah subhanahu wa ta'ala aad ka helaysa Ilaahay agtiisa waxaad noqonaysaa qof qiimo leh oo Ilaahay agtiisa Ilaahay uu weyneeyo oo maamuuso hadiiba aad saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam albaabkaas aad soo gasho. markasta oo aad badsato oo aad maalintii saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam gaadhsiin karto 10,000 ilaa 50,000 dad gaari karto oo Ilaahay darajadaas ku siiyo waxa hubaala inaad qisooyinkaaga adiga marti lagaaga noqon doono inaad bulshada u soo tabiso. ugu dambeyn walaal ama walaalkayga muslimka ah iyo walaashayda muslimada ahayba waxaan iskula dardaarmaynaa joogtayn inaad u akhrisato adkaaru sabaaxi wa masaa. adkaaru sabaaxi wa masaa waa gaashaanka noloshaada. haddaad subaxdii markaad soo kacdo adkaartaas aad noloshaada ku bilowdo galabtii bacdul casrna aad ku bilowdo adkaartaasi oo aad galabtii iyo subaxdii labada waqti adkaartaasi aad joogtayso gaashaankii noloshaada ee aad iskaga xijaabi lahayd shaydaan aad iskaga xijaabi lahayd ehlu shar oo dhan waa halkaas. markaad adkaari sabaaxi wa masaa aad akhrisato kadibna waxaan kugula dardaarmi lahaa inaad badiso saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam tirada ugu badan ee aad akhrido. saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa lamid ah qofku hadii wardi kale
ama dikri kale sida xasbunallah wa nicmal wakiil, laa xawla walaa quwata ilaa billaah, iyo dikriye kale oo aan soo wadno insha allahu haddii uu isagu jecel yahay inuu ilaahay qalbigiisa jeclaysiiyo inuu qabsado waxa weeyaan maxay wuu samayn karaa. laakiin mar walba aasaas waxa ku ah adkaaru sabaaxi wa masaa inaad ku bilowdo noloshaada subaxdii iyo galabtii. saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam waa dariiqa kugu dhow guushaada oo aad ku gaari karto. intaas ayaan isfaraynaa. tan iyo kulantideena dambe barnaamij kale intaan iskugu imanayno waxaan idinkaga tegayaa astawdicukumullah alladii laa tudiicu wadaa'icahu fi amaan illah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتمله بها الآفاق وعلى آله وصحبه وسلم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق برحمة منك يا حسيس يا خلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موجودة ملاي وموجودة أرجوستو فيري أرجوستو قبو